waxaan ku odhan lahaa labadeena lugood markaan ku soconno maxaa u dhexeeya bari iyo galbeed maxaa u dhexeeya haddii la yidhaahdo waqooyi iyo koonfur maxaa u dhexeeya waxba ma dhexeeya halkaa dal lagama deli karo dal laga helayo halkaas ma jiro kuwo murar dilaacaynanku buntland baa dee leewarka looga qabto oo ciidani soo taagay kalkacyo dhaqaaqa weyde soo ma dirin nacaybkii somaliland iyo puntland iyo ninkan firdhiye magaciisa dee magaranaysaa firdhiye ayaa imakana uu ku raali gelinayaa oo isleeyahay dee wixii aad turtushay bal oo cayn kale ku gubo oo cayn kale waxaad munaasibadda kowda August iyo halkan sanad guuradan degdegaysa maalmo ka sii horeysayba iyo waxa ku kulule waxa laaliyo wax uga soconaya ma jiraan xamsi waa reer kililkiisii lagama taageersana raggu la dagaalamayna habeenkuna waa la yaab xasan inuu ku guurayo horta dadkan ishelay ee xasan la shaqeeya waa dad isku maskaxa in isku leebana baa dadka jirta caruuraha mulcaamada u dhigtaan mulcaamada wadaadada u dhiga maarag maskaxdooda ay baadhaan in baa isku meel laga dhigay isku meela qofka hadduu rikoorkiisa qabto waa kuwa hadduu doono uu dirayaa xag jirka uu diraayo ila waayo inana waxa tahay markuu wax la yara taataabto dee macaan kale u daadiyo markaasuu arkay inuu hooyadii aabihii u sheegayo marka in isku maskaxa baa haysata ama fiqi ha ahaato ama xamse ha ahaato ama xasan ha ahaato ama iyo wixii la mida in isku mida oo isku leebala oo weliba family u badan ayaa haysta koonfur marka xamse waxaan leenahay halkan dhul kuma jire labadeena lugood waxa u dhexeeya waad garanaysaa oo rag baa leh yaa waxaan anigu odhan lahaa dadkan isku halaynayay markay dabaaldegayay firdhiye wuxuu yidhi puntland baanu salaamayna waxaan karo siyaasi u soo noqonaya markii xagga shal laga maray xagga laga maray ayuu malaa isleeyahay waxaad tidhaahdaa walaalaha hiil harti waxa ka miyir qaba dadka garaadka puntland jooga isagu damaca buu leeyahay wuxuu isleeyahay isku dardaaro taana diiday somalilandna diiday socon mayso halkaa labada lugood dhexdooda waxba kuma jiraan xamsoowe bal halkaad uga diga roganaysaa markaad imanka noqoto ee labadan dabaaldeg dhammaadaan maxaa ka soo baxaya meeshii yaad kaga tagtay dadkan aad ka tagtay wixii ay ku lahaayeen qaramada midoobay iyo adduunka UN ay ku lahaayeen loo soo diiday ma hayaa wala dhowr waliya buu deegadan ka soo qaaday meeshii uu yara barbarayay oo lagu baalashay meesha yaa baawurtii lagu madmadoobay qoriyay iyo hubkii dee qaar aynu inagu lahayn marka dadkana waa iska soo kolayaysanaya way dhamaanaysaa taas halkaa dhul kuma jiro marka waxaan nuftaa dib u qeybaan odhan lahay ninka la yidhaahdo xamsi adeeyadu mahadsan tahay intaasaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena kooban waxaanu mahad celinaa cumar ismaaciil cali cumar cawriye oo barnaamijkeen la qaybgelayay intaanu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waxaan isku dhaafinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.